Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabtaydii. Waxay tahay like-ta iyo share-ta iyo comment-gida waxaas oo dhan yaan lagu wada hadlin. Waxaynu marnaa waxay tahay jacaylkii bartilmaameedka barnaamijkii la magacbaxay. Waxaa inoo hadhay labada qaybood ugu dambeeyay. Heesta 61 ayaan ka bilaabanaa. Qaybtan mooyee qaybta ku xigta ayaa ugu dambeysa. Qaybtan waa qaybta 13aad. Waxay leedahay heesta wacan. Waxaan geeyan saanshaha wacan goortii aan helay waxyahaygani. Farxad weyn galeen oo aan waraabshay rayn. Wadnahaygu adigoo helkaa dhigtaaye sida wiilasha dhowr waraabana ha iga siin. Ku wiirsaday ku wiishaday igu riday waswaaskoo ka ladnaaday wahankii waayahan i haysto warankii la iga goo. Wiig kama maarmo wejigaaga bilicdiyo wata quruxda gaarka ayaa sababay weedhahan inay adigu weedaa naftan uma wanaagsana ku weehanaysee ka ilaali weydo warkay door bidaysiyo ka waraabi caashaqa webigiisa caanka. Heesta 62 magaceedu waxaa la yidhaahdaa Gacalo. Waxay leedahay gacaloy hanaankaaga qaabkiyo humaagaaga araggiyo horjoogaaga hadalkiyo dhawaaqaaga hidihiyo asluubtaada quruxdiyo hubqaadkaaga heemaalka muuqaaga iyo heedha socodkaaga. Ishii halacsataa doonta oo weli haraad ooman naftii hiigsataa xiiqsan hurdadiina ladi weyday hankii tiigsadaa yaaban rajadiina ku hungoobay. Gacaloy hagoogtaada huga iyo mariinkaaga bilicdiyo hufnaantaada qosolkiyo huruufkaaga haybtiyo tafiirtaada hanka iyo dadaalkaaga habka iyo samayskaaga hilibka iyo dheehaaga hubintiyo qiyaastaada fahankiyo hilaadaada hoodiyo nasiibkaaga hibadiyo waxsheegaaga halka aad ka soo gaadhay waa hooyo iyo aabe. Waa la gartay. Heesta 63aad geeyaan waxay tidhi waxaan gooni socod guuraha habeen iyo gooh i baday waa jacayl i galay waa xanuun gogladay qalbiga guntiisoo gama ah iyo iga jiray gasiin midaan goobayoon u guclaynayana waa gayaankay iyo gabadh sool ku dhalato gaariyee guulow alwaan guursadaa. Waxaan gu iyo dayr sida geed ka baxay gegi iyo bannaan uga go'ay dadkii garta oo bulshooy waa gacalo iyo jacayl gaaxsamo igu ganay rasaas midaan goobayoon u guclaynayana waa gayaankay iyo gabadh sool ku dhalato gaariyee guulow alwaan guursadaa. Heesta 64aad Sharaf. Waxay leedahay shin galbaday jacaylkii shafka iyo qalbiga degay weli wuxuu ka shaahaa sharafay halkii oo waxba sheeli maayo kuu sheegay nuxurkee may shaafinaysaa mise tolow shuruud iyo sharad baad ku xidhaysaa shaxdan kula soo degay. Shil u dhacay si kama aan nafa badan shideeyo dhaxaan shaahid u ahaay dayax 15 sow igumaad shandhayn caashaq shiday naftaydoo indhihii ku shiishana sow weli sidii shumac shishe kuma eegaan shibna dibnuhuna shib may odhan. Shukuur baan siciirsane shawrow bal falanqee caashaqoo shar naga celi shayddaanna ka fogow waa cadow shirraban oo sama laguma sheegin. Heesta 65aad ee ugu dambeysa qaybta 13aad ee barnaamijka jacaylkii bartilmaameedka magaceedu waxaa la yidhaahdaa Malyaandhaan. Waxay leedahay sida roob mahiigaana iyo mayayga oo hooray oo adiga oo moogan dhanka bari ka soo muuqday oo dunida maansheeyey daadkiina mulaciyeeyey maalkiyo dadkana deeqay dhulkoo idil la wada maydhay milicdiina ka qaboojay makhluuqii kulka u liitay geedahana muuneeyey oo maniyo ubax saaray meel kastoo ahayd godanna xareeddii macaan jiifshay sida mudhayo wada ramada oo gaawe laga maalo martidiyo dadkana deeqda oo la soo majeeranayo ama wagan ku miranaya muska reerka dabadiis oo qoob yar wada mudan ah magaankiina laga reebay ama fadhi webiga maagan
iyo biyihii oo mahday, ama tiro la mayracayo oo muxibo daaq geysay, maqribkiina soo celiso moorada ku soo aadan. Waa mahad Ilaahay markii aan ku soo eego adaan kugu masaalayay, adoon gabayga been moodin, milyan dhaango baa tahay, murtidaa intaad qaado gelimaanka oo qaadi, anna murugo iga baaji. Wabilaahi tawfiiq.